shirkan maanta magaalada Jowhar ay ku yeesheen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar saraakiisha ciidamada booliska iyo nabad sugidda Hirshabeelle iyo taliska qaybta 7-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku saabsanaa xal u helidda israasayntii maalin ka hor magaalada Jowhar ku dhaxmartay qaar ka mid ah ciidamada booliska Hirshabeelle iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle israasayntaasi oo sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac 5 ka mid ah ciidamada dagaalamay waxaa laga soo saaray shirka go'aamo ah in talaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii ku dhaqaaqda isku dhacyo ciidan mas'uuliyiintan ayaa shirkooda kadib waxay tageen goobta dagaalka uu ka dhacay waxayna ku heshiisiyeen ciidamadii israasaynta ay dhaxmartay waxa ugu horeyn goobta ka hadlay ciidamadan ugu baaqay in nabadgelyo ay ku wada noolaadaan gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow waxaan soo jeedinaa in wada noolaasho fiican ay kala helaan ama ay wada helaan ciidamada kala duwan nabad sugid hadday tahay military hadday tahay booliis nabadgelyo in lagu wada noolaado macal maamul waxaan aad iyo aad maanta aan ugu faraxsannahay in laba maalmood ka hor arrin inta ka dhacday inay maanta soo gabagooda aad farxad ii gelinayso dhacdada ka dhacday meesha laba dhacday ahayd dhacdo waxay qusaysaa maamul dhacdana waxay qusaysay ciidan tan ciidanka sababta isugu dhaceen ma aheenin arrin dhul ma aysan aheenin waxay ahayd negligence dhexdooda ka dhacay ahayd taasna waxay yimid labadii taliye amba saddexdii taliye booliiskii militarigii iyo nabad sugidii marka taliyaasha waxaan aad ugu mahadcelinaynaa kaalintaas wanaagga ay ka qaateen maamulka gobolka iyo degmadan wuxuu asagana laga sugaa inuu qaraarka soo saaro cidda lahaanshaha dhulkaas iska leh dhinaca kale taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle Korneel Xasan Dhiciso Xasan iyo taliyaha ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle Yaasiin Cabdi Tuuxu ayaa sheegay in ay ayidsan yihiin go'aamada ka soo baxay shirka maamulka heer gobol heer degmo maamulka ciidanka dhammaan mas'uuliyiinta arrimahan ka soo shaqeeyay in si nabadgelyo ciidamada meeshan shaqada ku dhaxmartay ay isugu yimaadaan waa mahadsan yihiin tan labaad ilaaha mahad leh isku dhici meeshan ka dhacay xalka u helay meeshan amarro iyo waajibaad lagu kala qaatay sidii loogu kala qaatay oo go'aanka loo gaaray oo maamulku u keenan ayaana loo gudanaa wax dambe oo dib u dhac ka imaanayna ma lahan waa wax ku yimid si kama ah ayadana hadii alla yiraahdo waxaan ka wada qaadanaa go'aan wada jira ciidamadiina waa wada heshiisiina dhamaantood gacmahan isu gelinay waa kuwa halkaas la taagan ayaga ciidankana waxaan ka rabnaa in siday shalay isla shaqeyn jireen isla shaqeeyaan say gacmaha isla shaqeeyaan cadawgii shalay cadow ahayo noo wada cadow ahay dhamaana in la fiirsado oo ay dhexdooda wixii dhalahayo dhacay sidii aan uga wada hadalna ay tahay dadka meesha dhibku ku soo gaaray hadii alla yiraahdo iyadana arintaasna waxaan u gudbinay maamulkii heer isteedii heer gobol ayadaana ka war sugaynaa ugu dambeyn taliyaha qaybta 7-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle Generaal Axmed Maxamed Maxamuud Treedisho ayaa ciidamada siiyay amar ah in ay ku dhaqmaan shuruucda ciidamada meeshan waxa ka dhacday laba dhacda ka dhacday dhacdo waxay ahayd dhacdo dhul la isku heesto dhacdana waxay ahayd dhacdadii ciidankii booliska Hirshabeelle iyo madaxtooyadii ciidamadii kala ilaalinay isku dhaceen isku dhacaas oo ahay mid negligence ah dhacdadii dhulka waxaan ku wareejinay ama aan u deynay go'aankeeda madaxda maamul goboleedka iyo madaxda gobolka Shabeellada Dhexe iyaga ayaa lahaanshaha dhulka iyo cidda iyo dadka shacabka kala saari doona insha Allah midda ciidankana waxaan rabnaa sida hadda aad wada joogtaan negligence-adii dambe inaysan dhicin maxaan ku yiraahdaa ciddii dambe oo arrimaha noocaan sameysana waxaa la tiigsan doonaa sharciga mar dambe cidii maxaan ku raad isku dhac ciidan ka shaqeysa ama isku dhacaasi uu qof ku dilo ama qof ku dhaawaco shuruucda iyo sharciyada dalkeena waa inay shaqeeyaan kan islaamigana waa inuu shaqeeyaa because diinteena islaamku ma ogolo qof muslina in qof kale uu dilo Ibrahim Ali Nur TV Universal Jowhar